waxaan isku dayi doonaa telnet inaan sameeyo iyo sida ugu sahlan oo loo koragareynayo inaan i tusiyo insha Allah. telnetka waa kan ugu sahlan oo remote ahaan loo isticmaalo, saas darteeda waxaa loo dhahay telnet ha la iska dhaafo, SSH ha la isticmaalo, badanaa dadka loo dhahaa telnet. hadda telnet aan sameyn doonaa insha Allah. okay, level router again this leenahay isku xir labadaas router percentage 0 percentage 0 halkan waa yaradii i tusi. okay, start labadaba percentage 0 percentage 0 okay, console here. okay, iyo console keebaa kan tusoo kacaya kan waxaa ka dhigtaa marka telnet. okay, IP address na waa IP na 192.168.1.0/24 sidii caadada ahayd. okay, iyo sidii loo jibin doono passwordadooda iyo secretkaba insha Allah. I think percentage 0/0 waaye. config to do show IP interface brief kulli godadku waa dansan yihiin. config 0 interface percentage 0/0 IP address 192.168.1.1 255.255.250 no shutdown exit. router 1 kale waxaa isticmaali doonaa lineka telnetka. username waxaan leenahay Somali. password waxaan leenahay Cisco. line VTY 0 kale. login local password isna waxaan leenahay marka maadaama kaas Soomaaliya kasoo dhignay password Cisco aan kasoo dhignay kaas kan waxaa iska dhahdaa 1 2 3 4 5. okay, waa kala dhamaanay. telnetkiis waa saasoo ku shaqeynaa. router 2 again show IP interface brief whatever wax ku jira ma lahan. effective interface percentage 0/0 IP address 192.168.1.2 255.255.250 no shutdown. okay, waxaan leenahay kan waxaa mal sameynayo. okay, WR always copy run startup config. haddaad ilaawid waxba kaa dhumi kara, saas darteed kuma shaqeyn karo. pin 192.168.1.1 oo pin gareynaya fiirina marka caadi u pin gareynayaa. haddaba telnet marka remote ahaan isku dayna router 1 ka ku galno 192.168.1.1 caadi u shaqeynayaa. maxaa kasoo dhan username-kiisa Somali saan maleynayo. password Cisco. router 1 waa joognaa hadda. waxaan kor maqano kor router 2 remote ahaan oo soo galo markaan enable ma yeelayo, wuxuu u baahan yahay line console u baahan yahay. okay, tar line console kala gaarin كم عرض exit telnetka inuu sahlan yahay aan rabaa halkan ka fiirno wire shagi wire program software yar halkan waxaa ku jiro oo ku jibin kartid passwordada fiidiyowyada kale aan soo sheegaba. haddana kana isku dayna marka aan jibi karno passwordka halkaan soo gelinay hadii la ogaanayo halkan.
waa yar shaagan waa soo daahaya. Okay, soo kacay wuxuuna tusay loop iyo waxyaabo badboodaad iyagoo isku daraan labada router. Okay, haddaba aan sameynaa marka telnet. haddaan telnet garaacno waxaa imaanayo waa soo bilowday. Okay, password muxuu ahaa, username muxuu ahaa Somali, password muxuu ahaa Cisco. ma shaqeynayo stop marka muxuu sameeyey telnetka waa kan oo keenay. Okay, TCP waa trust way ku leeyahay. haddaa fiirisid internet protocol version 4 waa kan source router 1 ka laga imaaday, waxaa loo socday destination router 1 ka loo socday router 2 laga imaaday. dot 2 waxaa iska leh router 2 iska lahay, dot 1 waxaa iska leh router 1 ka loo socdaa la yiri. waa IP address kala isticmaala waa version 4. Okay, passwordka waa inaan helnaa. transmission control adana sidoo kale destination port oo isticmaala waa port 23 ku leeyahay. port 23 waxaa iska leh telnetka iska leh badanaaba. telnetkina waa kan. Okay, kelmadihii aan qornay xabado halkaan oo siinaa saan maleynayo. meesha u koreysa taaganahay EOCA. meesha labaad hadaa imaado maxaa dhacay, waxba isma bedelin. meesha kale NOCA enable-kii aan qorno waay. meesha saddexaad waxba ma siin. Okay, tan u koreysa imaaw right click siiya marka waxaa dhahdaa follow meesha ay ku qoran tahay tag, TCP stream meesha ay ku qoran tahay tag. wixii dhan aan soo qornay waa kuwan. user access verification, username calaamadahaas la siiyey laakiin halkaan laga siiyey. waxaa lagu siiyey Somali oo laba kelmadood ah. password Somali Cisco passwordkan ku soo galnay. enable aan qorno waa kan. Okay, marka su'aasha meesha taalo waxay tahay halkaan kale line console-ka mise tab gareysan oo ku leeyahay no password set oo ku dhaw la soo diiday. anagana saas aan la malayna no password set Somali wixii lagu dhaho dhan ku tusinaa waxa ma qaranaay. Okay, laba kelmad marka anaga Soomaali kaliya gelinay muxuu noo siiyay laba kelmad, laba s oo siiyay, laba oo siiyay, hal oo waan kastay. waxaa xisaabsataa marka haddii lacal aw baantay geedka inaad baratid waa shaaga. meesha username oo kaa siinayo laba xaraf guduud ka gabood buluug isticmaal. haddaa buluug xisaabsanaysid waa SOMALI waa Soomaali. username aan sameyno ahaa kaas aan kusoo galnay. guduudka oo dhan gabood wuxuu laba xabo ku siinaa reverse ahaan oo xisaabaya, forward ahaan oo xisaabaya, gadaal ahaan oo xisaabina, hore ahaan oo xisaabina. Okay, Cisco password laakiin si rasmi ku siiyay la passwordkii waxa ma qaraninba. taas waxay ku tusinaya marka passwordka clear-ka aan soo sameynay waana tusay. tolo hadaa encrypt ka dhigna ma la jebin karaa. aan try gareyno taasna tijaabo horta line console-ka waana sameynaa. router 1 ka imaam. Okay, waxaan leenahay config t line console 0. Okay, password haddaan maxaa dhacay waxaan siiyay 7. wax lama geli karo kan soo maleynayo ma yeelayo. Okay, password waxaan leenahay. Okay, kan waana qarinaa marka encrypt waana kasoo dhignaa. ma jiro horta intaan kasoo dhigin ka hor password waxaan leenahay kan Somali kii hore aan soo adkeynay saas la soo sameeyay sugaanay and wr hadana show run. halkan waxaa noo taalo kana saarayna marka kana waxaan ka dhigaynaa secret md5 password aan kasoo dhigaynaa. config t okay no enable password enable secret marka no waxa ugu hormariyay passwordka horaan rabaa inaan saaro. okay, inaan saaro si fogaan karnaa waa do show running config kii hore away username. okay, username kan waa noo yaalaa kaas ma waxaan rabnaa inaan bedelno naftirkiisa secret aan ka dhigi doonaa kii enable ka soo saaray kaliya
kaas naftigiis waa in la saaraa config t username enable laga yaalay anaga wax qaldan garaacda umaleynaa markaas inuu yaalo ma umaleynayo sukadaba aan kor aado no enable password aan dhahay tan markaan dhahay no enable password waxaa laga rabay inaan dhaho no username by password waxaa laga rabay by mistake way qalad dhacay taas marka username inaan ka dhaho aan dhaho halkaan no username password no username incomplete way leeyahay voice somali password okay no username somali and password aan dhahanay inuu shaqeeyo double diagaray everything troubleshooting ismaaj beta marar qaar okay ma hayno hadeer username kaas waa tagay okay hadduu tagay waxaa u baahanayaa marka kan waxaan usoo sameynay linekan vty-ga aan soo sameynay line console aan soo sameynay okay line vty waxaan soo sameynay 1 2 3 4 5 line console waa kan aan soo sameynay isna Somali aan kasoo dhignay okay hadhow waa bedeli doonaa laakiin kor waxaan rabnaa username inaan bedelno aan ka dhigno secret username waxaan leenahay somali secret markaan secret kan wuxuu isticmaalaya md5 oo isticmaalaya okay marka maadaama username ka Somali yahay hadda waxaan leenahay cisco oo sida capital tahay waxaan kale ku dareynaa calaamadan oo percentage-ka waxaan kale ku dareynaa calaamadan xidigta intooda isku okay waa soo maraynayo okay number ku dar 65 ku dar ayana cisco calaamada percentage iyo 65 aga dhignay okay haddaba hoogaa waa adkeynay marka kan md5 uu noqonayaa laba gorbaba inta hadaan ka fiirino show run config hadda dhahdid waa kan shantii xaraf lixdii xaraf aan soo qornay saasay noqotay md5 la isticmaalay marka router 2 muxuu keeni doonaa waa shaagin muxuu sameyn doonaa aragno startup software shaag halkan imaam router 2 ga tag intuu ka soo socdo exit oo soo baxay domain telnet imaam markaan okay username maxaa somali password maxaa ka dhignay cisco calaamada percentage-ka iyo 65 enable kaas maxaa ka dhignay tolo Somal oo aan walana yep router 1 waa joognaa okay kan stop ida marka wuxuu keenaa aragno dhanaankan kan tuugana la yaabanahay jidkuna taagan wax ka saf xabad u soo saara quality galaaf waxa tagnaa flow tcp stream Somali waa kan password encrypted md5 waa la jabiyay md5 lama jabin bam waa shayga jabsado wallahi Somal waa kan password kale soo saaray wax kasto aan gal way tusinaa hadaan show run config now stop and I can stop dhahay tan stop in ahead and exit okay so kaas marka waxaan telnet markale username Somali password cisco percentage 65 waxaan rafaadka aan ku xafiday soo ku keen wire shack Somal waa kan show run config wax kasto aan qoray inuu keenayo arka marka waxba qarnina waxaan dhan soo saaray Soomaaliya stop da markaan waxaan tusi doonaa wire shack jidka loo fadhinayo waa kan inta looga badbaadayo wixii aan soo saaray Somal username ki waay cisco percentage 65 password ki waay waa kan
okay enable aan dhahay haddana console kan soo galay line console ka Soomaalian soo galay show running config aan dhahay show running config iyadoo straight away kan wixii aad leeyahay soo dhan waa kuwan router 1 wax kasto wax qarsan ma laha wax qarsan ma laha wax u qariib ma laha banaanka soo wada dhigay marka waa kan telnet yaa la isticmaalo wax loo dhahayo waa intaas ay tahay okay haddaan dhaho foran marka service security dan soo isticmaalo service password kama doono exit router 1 kama waxaan isticmaali doonaa config configure terminal okay service password encryption service password encryption wax kasto aan haysanay oo wuxuu ka dhigayaa encryption marka asna waxaan hadda isticmaalnay haddaan fiirino kan waxaan isticmaalnay username password markaan sameynay username secret aan sameynay md5 way 5 kaas waxay u dhigantaa md5 waa password laakiin meeshan waxaa yaala passwordada kale line console ka martay iyo line vty normal password text isticmaalo waa kuwan text isticmaalay kuwan inta rabnaa haddana inaan service kan ka sii dhigno oo secret aan ka dhigno waxna aragno haddana doo jebin karo okay waxaan leenahay show run maxaa ka dhigi horta wuxuu isticmaalaya password line 7 uu isticmaalaa hadeer waa kan meeshii 1 2 3 4 5 ahayd waxaa laga dhigay intaasoo number laga dhigay line 7 uu isticmaalay halka meeshii oo ahayd Soomaal waxaa la isticmaalay intaasoo number laga dhigay line 7 la isticmaalay waa shaagu hadda muxuu sameyn doonaa hadduu soo qabanayo aragna marka start there soo baxo soo baxdo ma telnet Somal Cisco 65 enable come high Somal show run config wax kasto waa la soo qariyay aragna marka stop kan was madowga maxay wadaan talo okay fiiridona follow the TCP okay username siisa okay password siisa okay line 7 waa la soo qariyay waa la soo jebiyay asna password line 7 ka la soo jebiyay show run waa kaasa wax u qarsan ma wax kasto banaanka yaala TCP waa ka labo telnet ka wax u qarsan ma lahan waa shaak saas oo jibinaa yaa ka dhuumanaa marka intee loogu dhuumanaa waay intee loogu dhuumanaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته telnet intaas oo uga qaatay SSH aan sameeyo doonaa sida waa shaaga loogu jibinaa waa fiirin doonaa insha Allah waqtigiisa hadii la gaaro السلام عليكم ورحمة الله